siciid saldhiga boora mawlahayd sinjiga gobani malahayd ayaa si faxadara hal mar ila soo dhaweeya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle samaro siciid saldhiga boora mawlahayd sinjiga gobani malahayd ayaa si faxadara idinku soo dhawaynaysa soo dhawaada barnaamijku wuu inoo bilaabmi doonaa waan idinka mahadcelinaya waxaa barnaamijkan caawa inoo daadihin doona Axmed Deeq Cawl Jibriil oo ah intii wasiirku joogay xogayihii gaarka ahaa ee wasiirka la socday ilaa maalintii ilaa maanta iyo ilaa maalintii uu ka tagi doono hadii la haydno Axmed Deeq ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته martida qiimaha badan leh kulankan maanta isugu yimiday iyadoo ujeedadiisuna ay tahay in uu la hadlo la isku xog waraysto muddada uu inaga maqnaa wasiir Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle bilaadanku waxa ugu qaalisan oo bixiyo waxa kamid ah waqtiga inaad waqtigiinii soo bixisaan waxay aniga iyo inta halkan fadhidaba tusaysaa kalgacaylka aan xad ka lahayn aad u qabtaan wasiirkiina qof bilaadanku sidiisaba wadwadan hadaad aragtaana waxba ku duugan marka waqtigiinu idinkama khasaarin aad iyo aad bad mar labaad u mahadsantihiin waxaan u maleynayaa markii ugu horeysan oo xiriiriyay inay tahay oo ma baran laakiin adeerkii bay soo qasbay maxaydiin isaguna runtii waxaan jecelahay bilaadanka qofkaan u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqo laba qof baan si gaar ah doonaya inaan ugu mahadnaqo aanan jecelahay inaad igu sacbisaan oo ina la'aantood suurtagal noqoteen kulankan iyo kuwii ka horreeyay iyo kuwa soo socdaba waa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin Afrodeli iyo Muxiidiin inta ka sakow walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad bood maasantihiin waxaan jecelahay inaan barnaamijkeena toos u gudagalnay hadii la heeraa marka koobaad waxaan soo dhaweynayaa Sheekh Mustafa Abraar oo inoogu akhriyo doona aayadaha Quraanka falay tafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وانكسي سعندونا برنامج كينا وحنو يري دونا قفك وهوريا اين لهد لدونا ورنتي قف نقو قاليا انتين هلكا جوجتا رجي دمر marka la isku daro waa shakhsiga inoogu daaweyn wax badan oo taariikhi ay ku duugan yihiin cilmi iyo cashar inaan ka barnaana muhiim ah bismillaahir rahmaanir rahiim khiyaarta hal doorka samaroon ee caawa halkan rag iyo dumarba ku kulmay nasiib baan leenahay horta halkan aan joogno maanta aan ku hormaree salaad baan ku tukanay asalkeedii hore khamri baa lagu cabi jiray walaalkeen iyo ay noo soo gacan geliyo dee waan ku tukanay alxamdulillaah ilaahay ha barakeeyo kulankeenana ha badiyo dee waa kaasee qof walowba hurdada ka kaca oo ku ambabar qofkii dadaalaa inuu gaadho taasi waa kow tan labaad waxa sharaf ah oo nasiib wanaag ah inuu caawaynala joogo waa nin ka yimid meel adag
oo shaqo Soomaaliya ay leedahay ma aha shaqo dawladda xamar ay leedahay shaqo Soomaaliya ay leedahay kamida dhaliyay kuna biirsaday inuu abwaan guubaabo iyo wax sheeg Soomaali weyn la dhex joogay oo meel adag ah oo rasaastu ay duulaysa ka yimid isagoo qurux badan oo maanta ina dhex fadhiya inuu Ilaahay halka ka soo badbaadayna oo inagu soo noqdayna ee waa farxad kale oo inoo dheeraada waxa taa ku xigtaa inagu halkan degan wixii war inagu dhiman haday tahay Muqdisho haday tahay Boorame iyo Hargeysa haday tahay dhulka Soomaaliya ay degan tahay wixii war inaga dhiman de su'aalaheeda diyaarsada wuxuu noo sheegayo una ku faanayn oon aragnay waayo waa nin wax cidla ka bilaaba oo isagoo la yaaban yahay oo dadku ay leeyihiin war muu waalan yahay iskuulkii gabeeda secondary cidlu ka bilaabay isagii Cali Baxar iyo ragay bees jooga war muu waalan yahay baa la lahaa maantana waa laga soo dareeray nin meel ayna waxba jirin wax ka sameeya dadka oo dhagaha haysta rag kulay rag way ka horeeyeen iyuu yahay wixii waani iyo wacdi uu hayo uu noo sheegay iyo wuxuu war dhulkii ka wado aniga hadalkaygu inta ma dhaafsana waanad mahadsantiin sidaad ii dhageysateen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي أدبو ما تسيني إلهينا وحن كبرينا كوي ولايا وانا إيو وحشيق ونسين إلهينا قدقو وحن كسي سعونينا مرتدى عاوة هل كان كهد لدونتا وحن كو حيجيسينا يا بانكر هوري أو سو شقي دولة دي دحي فدرالك الصومالي وقتي جرتي هل كان أمشورين يفرديان أرضي بدن وردي دي سي كميدا بربارية ومدى وحبادن سوقبتي معلنها والشيخ محمد حسين فريد يوسع بيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وحويان مركهوري كل جيمبا رقي الدمربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرنتن يعني مانتا إلهي سبحانه وتعالى meeshan uu keenay khayrka qabta anaamka saddex shan ka soo sokeeya dhulkii munaasabadan in la kulmo yani fadli ilaahay weeyaan oo aan muxuu ahaayay halkan community-gii dadkayga oo isxilqaamay inay soo dhaweeyaan nin ka mid ah oo sharaf leh oo magac sameeyay oo lagu faano aad soo dhaweysaan oo shariftaan waa wixii loo baahnaa weeyaan waxa weeyaan waxa horta marka horeysa waxaan anu soo jeedinayaa anu community-gan aan ka mid ahay waliba kuwii ugu horeeyaan ka mid ahay community-gii u batay waxa weeyaan sidaad maanta beelo u soo dhaweyseen waxaan idinka doonayaa inaad community noqotaan inaad muxuu ahaayey danihiina halkani aad muxuu hagaajisaan waxa weeye community la'aan muxuu ahaa dadku waa individual hadduu yahay waxba ma qabto waxa weeye qabiilka iyo balaayada Soomaali heshay ee cid walba heshay iyo dadkii kala kaxayso oo shaqo shaydaan weeyaan meeshana joogtaan qurbaha community sidaad maanta u timaadeen haddaad muxuu ahaa iskugu timaadaan oo aad muxuu ahaayay horta kow halkan wixii idinka qaldan aad hagaajisaan wixii idin yimaada sida maanta baylo oo kale waxa weeye sharaf baad siinaysaan ummad mida oo muxuu ahaayay wax qabsatay waxa ugu weyn ee community-ga halkan inuu qabto ay tahay
dhallinyaraad u badan tihiin waxbaad dhalaysaan muxuu ahaayey waxa weeye mas-uuliyaddii ilmaha ayaa idinku weyn idinkoo muslim sheeganaya oo halkan jooga carruurtiinnii si aad muxuu ahaa uga badbaadisaan muxuu ahaa wixii ka baxsan yani islaamnimada waa inaad isku tegtaan yacni communitada aan la joognee la mid ee soomaalida ah waad aragteen carruurta la yidhi muxuu ahaayey marka la qaadayo muxuu ahaa ijaasada qur-aanka oo kale minnesota qaadata iyaan ku leenahay carruurteenna waxa ku jira maad maqasheen waa inaan kuwaa noqonnaa oon kuwa ugu sarreeya noqonnaa waan badbaadaynaa markaa waxa weeye cabdiraxmaan iyo soo dhowayntiisa waxaan uga hadlaya communitigu waxa weeye maanta samaroon qolada la yidhaaho waxay u baahan tahay leaders bay u baahan tahay leadersku laakiin siday u samaysmaan waxay u samaysmaan markaad soo saarto kaaga anfacaya halkaas soo dhigto adoonan meelka hoos u dhaadhicin oonan odhan waa kan iyo kan waxa weeye war kuma meesha yaqaana oo wax ka soo saaraya oo magaciga wanaagsan inoo keenaya ayay ku fiican tahay in muxuu ahaayey la dabagalo waxbay iga weydiiyaan waa run waa nin qaaliya kolley waxaa sheegay shiinaa sheegay 1989 Soomaaliya markii halkan shirkii u horreeyay halkan lagu qabtay 98kii baa igu horreysay beyle araggiisa laakiin ka hor xidhiidho kalaanu lahayn qadiyadda waxqabadka ayuumaynu ku fadhiday qofka markay ay daacad ka tahay inuu waxqabto xaggee loo maraa ma yidhaahdo isagaa samaysta meesha loo marayo halkaanu ku kulannay malaha 7 qof baanu ahayn markii shirkaasi dhammaaday qaban baa ka mid ahayd ma jecli inaan cid kale ka tago dhowr qof baanu ku tagnay waxaan idhi war iskuulkaa geb waa gidaarkaa cidlada ahe sideen u dhisnaa halkaasaanu ka bilownay geb ninkaas oo madax ka ah African Development Bank oo mar baa la shaqayn jiray marka uu soo kala la kaco ayaa intuu boorama tegay wuxuu ka haystay baabuur iska roga ah markaasuu tukaan walba hor joogsaawada iigu rid jawaan sibidha ka kaloo tagaaba iigu rid jawaan sibidha ujeeddadaan ka wadaa waxa weeyin waxaa daacad ka ah maaha inuu Soomaali weyn uu wax ka dhisay inuu horta baltolkii wax ka dhigo baa ka horreysay marka waxaan filayaa in badan oo innaga inamadiina inaan ku dayano waxqabadku waxa weeye waa inay kaa soo go'do waana akhriyi kartaa qofku markuu doonayo inuu wax qabto taasaan iyo beele isku kaaya xidhay marar badan oo waxaa jira aan idhaahdo waa niyo meesha ka soo dhaqaaq moogtay way waxaad og tahay waxbaad og tahay waxbuu og yahay adana og tahay waxbaa haysta isaga oo rabta in magaranaysaa uu qabto marka waa ninka wax ka soo go'aan oo jecel inuu wax qabto oo mararka qaarkood riska u gala inuu wax qabto oon dan kale ka lahayn wax kale intaasaan ka aqaan laakiin waa badda soo dhawo wasiir waana salaamantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu brofeserku aad buu mahadsan yahay cali baxar marka meelahan oo kale la isugu yimaado laasim waa inay dhallinyarada reer Minnesota hadal ku yeeshaan marka wasiirka waxaan ka horreysiinayaa dhallinyarada reer Minneapolis oo u hadli doono hadar aloore soo dhow السلام
السلام عليكم waxaan salaamayaa horta marka hore duqeyda waa duqeydii miidii gobolka iyo community-ga hadalkuna waa gabagabo ma jecli inaan ku raago haweenka dhalinyarada waxaan idinka mahad celinayaa sida aad uga soo qayb gasheen horta wasiirku anaga dhalinyar ahaan si ka duwan sidii asxaabta hore uga soo sheekeeyeen ayuu saameyn noogu leeyahay ragga qaarkood waa la galaas ragga qaarkood meelay ka soo wada shaqeeyeen laakiin anaga si gooniya waxa uu noogu yahay waxaan ku dayano waa jid aan mari doono ayuu noo sii jaray sida maaragtay inta badan la socono anu hore iskumaan arag laakiin 5 sano ugu dambeysay waxaan saaxiib ku ahayn baraha bulshada Facebook-ga waan dhageysan jiray 5 waxyaabood oo aan dadku ka sheegin ayaan ka bartay oo calaamadooda uu leeyahay oo jeclaad faahfaahisid laakiin hadda ma faahfaahin karo waxa kamid ah inuu karti leeyahay oo meeshii uu yimiday baaba'sanayd oo intuu wax ka dhigay iyadoo shaqaynayso oo fiican uu ka yimiday taana waxa sameyn karo nin karti leh wasiirro hore way soo mareen kuwa dambana way sameyn karaan marka wasiirku halka wuxuu naga tusay kartidu faa'iidada ay leedahay talabaad waa nin hal adeeg leh iyo ku dhac oo waxaan ognahay sidaan afkiisa ka maqlay marar badan in la isku dayay horumarka iyo wanaaga maaliyadda Soomaaliya inuu dadabada u aaso in lagaga hor yimiday dad Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahaynba in uu gaashanka u daruuray buu noo sheegay taasina waa hal adeeg iyo ku dhac aan jecelahay inaan kaga dayno saddexaad waa mid la iska wada yaqaano waa magaciisa daacad baa la yiraahdaa wixii loo dhiibay sidoo uu hayay buu kaga yimiday daacadnimada oo inta badan nagu yaraatay oo haddaan dhalinyarnahay wax daacadiba ma jiro aan aaminsanayn uu naga shaafiyay haddii aad wixii lagu dhiibo aad ilaaliso inaad sharaf ku yeelanayso haddii kale guri yar iyo wax yar ka samaysatana aan sharaf lahayn taana waan uga mahad celinayna ugu dambaysa shanaad abwaan weey wasiirkeenu waa iska yaqaanaa waa meesha ay iska jaraan abwaannimada hoggaanka iyo aqoonta ayuu noqday iska jaraan heesihiisa marka ama uu soo qoraa ama iyadoo maqal iyo muuqaal uu soo dhigo Facebook meel baan ula bixi jiray gooni oo kuwaayada saan oo analyze karayo si fiican u fahmo waxa iga soo dhex bixi jirtay in hadda xaaladda uu markaa ku sugan yahay dareenka qalbigiisa ku jira ayuu erayo ku soo sheegi jiray marka waxaan oran jiray xaaladdu bariyaan ma fiicno markaan erayadaas iyo heesta aan maqlo waxba jira marka waxa dareemaysaa qalbi gubanaya oo ma garanaysaa gunuunaya in hadaladana ka soo baxeen nin wuxuu arkaya aan la arkayn oo sidii geesi tul waayaan la oran jiray oo kale marka anagu sifooyinkaagaas markaan buugta akhrino hoggaanka iyo waxa ku saabsan waa calaamadihii uu lahaa qofka hoggaamiyaha marka aan u baahdo inaan hoggaamiyo ku daydo uma baahday inaan Nelson Mandela buugtiisa soo akhriyo iyo Barack Obama waxaan u baahnaa inaan baayo iyo aan ku daydo maxaa dawlad waxaana tustay iyadoo dhulka kala wada qariban yihiin haddii meesha adi lagu dhiibo aad ka soo bixi karto hagaajin karto dhisi karto marka waxaan ku dhiiranaynaa inaan mustaqbalka aan isku dayno haddii xitaa wasiirada kale iyo madaxweynaha waxba ay qariban yihiin meesha yaraa adi lagu aamino bal inaan hagaajin karo aad baan u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii insha Allah waxa inta inoogu xigi doona dhowr qof baa soo dalbaday inay wasiirka su'aalo ka kooban weydiin laakiin waxaan sameynaynaa inuu ma saamaxayo waqtigu marka fadlan raali ahaado dadka su'aalaha laga hayo su'aalo soo qortay wayna la joogaa beelo usbuucan hadii la hayra si shakhsiyan oo la kulmi doona qofkii doonaya marka waxaan soo dhaweyn doonaa martideeni
special guest qofka caawa halkan loo joogo oo runtii in badan wada sugaysa hal mar ila soo dhaweeya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجع يدمر كشرفت على هالكن السجويمي قابن قابياش شركا عشدا غروح ضبضن مدشن سيد في عن لوسو أجاسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan u kala ballaaday meelan hadalkayga ka bilaabo ma garanayo amaan fara badanna runtii dusha la iga saaray waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo reer Minneapolis iyo reer Minnesota iyo inta America meelaheeda kala ka timi imaashahayga halkan ma sii shaacinin qolay casuuntay diaspora dhalinyarada ah oo shalay shir weyn lahaa oo markii aan imi meesha xalay ididiila Soomaaliyeed bay gashay dhalinyartii yaryarayd ee iskuulada gashay innovative ideas ay meesha keenan xalay waxaan isiri Soomaali rajo weyn bay leedahay baan isiri ayaga ay soo casuumay ayarun baan soo yar galay minidkii la ogaaday inaan imi I was overwhelmed si fiican baa la ii soo dhaweeyay waan idinka mahad celinayaa halkan xafladan caawa oo aan isleeyahay reer awdal ayaa u badan waa markii labaad ee idinku casuumada ay sameeysan habeenkii hore weynagii halkii hore isugu nimi arintii ugaaska aan u sameeynay maanta ku xigta caawa kelmado aan magaranaysa ku celiyo mahadnaq oo adag ma heli karo waan idin mahad celinayaa haddaan ka warramo halkii aan ka imi deewn shaqadii aan hayay baan doonayaa inaan idin yar dul maro iyo Soomaaliya gaar ahaan dhulkaan ka shaqeynay aniga waxaan ka soo shaqeeyay meel fara badan oo xalay waxaan sheegay maalintii halkan Minneapolis aan imi anigu 1979 bay ahayd maalintii Minneapolis ugu horeysay 1979 waqti hore oo dadka inta badan halkan aanay jirin ayay ahayd dhalinyarta xalayna waan sheegay 79 long time ago maalinta laga bilaabay ilaa maanta inta yaraan Soomaalida u shaqeynayay maahaane waxaan la shaqeynayay international community-ga maartay waxaan ka shaqeynayay arinta financing waxaan sheegay inaan Afrika inteeda badan aan arkay la soo shaqeeyay mashaariic kala shaqeeyay development-kooda kala qayb galay in yar oo francophone countries mooyaane inta kale oo dhan waan ka soo shaqeeyay sometimes Somalia portfolio-da anigu aan leeyahay way ku jirtay laakiin Somalia always was a challenge to come security issues baa jiray markii xataa aan noo suura gashay nimidna 2012 meelaha siday Soomaalidu u fikirayeen waxay ahayd si adduunyada ka duwan Afrika shaqo ku lahayn ay ahayd waxa kale meesha ku jirtay inta aan shaqeynay shirarka aan ka qayb gali jirnay ee Afrika ahaa Soomaalidu ama kama soo qayb gali jireen hadday ka soo qayb galaana meesha isku leeyin jireen embarrassment socda bay hayeen ya meesha isku leeyin deetana markaasa calankii yar inta la dudoomay la gelin kursigan xagga loo sii jeedin labada qofna hadii la doono la xidhiba marka waxa soo dhanba iga buuxsamay waxa kale iga buuxsamay wax lacag ah ee adduunka la siinayo ya marban anagu waxaan u sareeyay qaybinta resources-ka to the African continent baan anagu madax ka ahaa mar policy development ka iyo allocation of resources to countries baan mar African Development Bank madax ka ahaa yaad wax siini dad
dad badan oo iswadalaynaya oo ninba ninka kale cunaha kaga taagan yahay marka wuxuudii inta meel yar la dhigo baa hadhow la yidhaha baylow reallocate ayaanu wadan hebel waxaasa iga buuxsamay nimayo rag iyo dumaro waxaasa iga buuxsamay waxa iga buuxsamay inaan Soomaali la aamini karin arinta ah inaan waxba loo dhiiban karin inaanay waxba ku filayn inaanay waxba ahayn bay iga buuxsamay waxa iga buuxsamay shirarkan ka soo qayb gallo oo dadanu muddo isnaqaan heesahaygana way ku jiraan hadaad aragteen يعني أنا هسايق مدول اللي هو chapter of something a chapter of a book وين مدي بقى waxay ka hadlaysaa maalinta ay gaaraysiiyo Soomaaliya ku saabsan ayay ka hadlaysaa meel baa la iskugu iman shirkan oo kale oo adduunka Afrika oo dhan iskugu timi adduunyada dadka lacagta bixiyaan ay isku yimaadeen baa la iskugu iman markaas baa for some reason asxaabtii aad shaawada cabayseen ama wada qadiisa baa ku oran adigu xageed ka timid mar aliyaala marka tiraahdo horta aad tiraahdo bal hada take a guess halkan ka yimi Soomaaliya la soo hadal qaadi maayo waxa lagu oran Ethiopia ka timi waxa lagu oran Suudaan baad ka timi marmar baa India ka timi bal India ma halkan Afrika weey Soomaaliya cid soo hadal qaadaysa ma jirto hadhow marka tiraahdo Soomaaliya ka yimi sheekadii way isbedeli totally ama negative bay isku bedeli what is wrong with you guys baa lagu oran ama waxa lagu oran wala iska aamusan hatta wadadka asxaabtaada hayad inta shir soo wada galiseen wada shaqeynayeen qaar koodna inta soo heesa aan u qaaday si loo xoreeyo la deeqada waalideena balaag ilaahay baan ku dhahay dadkii in la xoreeyo aan heesa u qaadi jirnay oo aan u xasuusanahay ya ayaa waxay u iska ka aamus aan waxa qorani you guys maxaatiin horta niyo maxaatiin bay orani marka anoo waxa soo dhan iga buuxaan ayaa waxaan damay markaa inaan waxaan qaban kara qabto waan imi foreign minister baan noqday foreign minister shaqadayda ma ahayne waan isqasbayuune laakiin iyada lafteeda waxaan qaban kariyay baan qabtay now finance markaa markii la ii dhiibay maxaa la igu amaani anagu wixii finance minister loogu talagalay ma qabtay oon ka baydhbayd lahayn ya wax waliba qaanuun bay ku socdaan qaanuunka wixii aan ku socon hayla soo gali maadaan hayla soo gali miyay qaanuunka miyay waafaqsan tahay budgetka la soo ansixiyay ma waafaqsan tahay wixii aan inta waafaqsanayn oo baan iska diiday ya ko waxa kale oo ii sheegaya walaalayaal waxa kale oo ii sheegaya dawladda qof kali waxa ma qaban karo waa dawladdan oo wada socota madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu hadii aanay ogolayn inaad sidaa wax u wado 1 year ma joogaysi dawaniga hadaba ka imi ya laakiin waa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu midkood kugu mitida u yiraahdo wariya dhigayso do exactly that waa inuu ku yiraahdo marka raga iyo dumarka aan la soo shaqeeyay dawladdii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxay ahayd dawlad aniga runta Ilaahay baa jecel doonaysa inay wax qabato ya inay wax qabato Soomaalinimana ku jirto hadii kale ras ashur bari waran ka tagi baayo maan qabin meesha sii fadhiyo meesha waa jeel baad ku jirtaa all the time ya in fact 5.5 years oo jeel lagu xukumay way magarata marka de waa inuu motivate jiraayo aroortii markaad habeenkii soo rooxdo waa inaad tiraa Allah I have done something waa inaad tiraa hadii kale wad xanuunsan magarata marka waxa nagu hayay meesha waxa weeye dawladda wada socotay ee meel ka tageysay ee meel tageysay ee la isla garanayo ayaa horta meesha igu haysay now amaanad darrada iyo aamin la'aanta oo aan dadkii Soomaalida cashuur soo urursay weeyaan haddana kuba aaminsanin ka war oo ku oranayaan lacagteeda xageed geynaysa maartay xageed geynaysa marka horta waa iyaga iska dhaadhicisaa oo tira adeerow committee-giinani waad ila shaqeynaysaa nimanka cashuur bixiyaasha committee soo samaysta committee soo samaysan dabeetana iyagaaba kula maamuli maxan qarinba lacagtii la idinka qaaday waa taas oo ma halkaas ay gashay soo ma halkii lagu isticmaalay waa tan sida uu ogaadaan way ogaadaan in lacagtaasi meel kale tagay
that's number 1 ku guulaysanay inay dadku naaminaan oo yiraahdaan okay oo dabeetana dakhligii soo galay every year every month korodho every year lacag badan ku korodho waxaan ku soconay markaa inaan anagu the cost of running government anagu aanu dakhliga ka cover garan karno ayaan ku soconay ma aan gaadhin laakiin waan ku soconay aad baan ugu soconay ayaga wayna aamineen waxa kale oo nidhi international community-gan aan dad banoo haysan ya anigu baa og waxa naga gaaray maalintii u horeysay la fadhiisanay ya waxba noo haysan baan ku nidhi dhageysta nimayow waxbaynu kala sayaxanaynaa waxbaynu wada qabanaynaa hay arday baan ku hay discourage garaynayna give me the courses and I will pass it I can assure you will do it because waxaan ogahay programka deen cafinta la yiraahdo wadana badan oo aan la soo shaqeeyo Sierra Leone iyo Liberia iyo Mozambique Angola waxa soo dhan way soo mareen waan aqaanay waan ogaa ma waxay kuwaas qaban waayeen ma aanu qaban kari waayeen ya marka nimankii reluctantly way ogolaadeen inay course waxaan ka soo qaaday anigu undergraduate course baa horta la qaadanaya undergraduate course credits bay leeyihiin ama horaadu dhamayn ama 4 sano maximum laakiin horana waad u dhamayn kartaa every month every year hadaad qaadato every semester 18 credits or 19 but horaadu dhamayn kartaa anagu waxaan dhamaan hore u dhamayno kaba surprise ku sameeyno yaad dhamaanay marka hoos bay nooga soo bilaabeen 101 ma rabnay 101 ma ku wareegaynaa ilaa waligeeyo ya 200 level baan doonayna 300 baan doonayna horaan u dhamaynayna baan ku nidhi aragtay dadkii ila joogeen waxaan ku horeeyaa dhageysta qofkaan taa sameeyeen waxa qabanayno aniga ila joogi kartid meesha shaqaalaha tag halkan ma joogaysid hadaad joogto lacag baan ku seenaynaa commission baan ku seenaynaa bad laakiin habeenii dhalay shaqaysi weeye a change of course of action ayaan dadkii ka wada dhaadhiciyay marka waxay noqotay marka hadalkaan idin soo gaabiyo Soomaaliya 330 wadan ayaa tubta maray deen cafinta la yiraahdo tubta number 1 bay noqotay Soomaaliya number 1 deen cafinta decision point ka la yiraahdo gaarideeda anagu 3 sano bar baan ku gaadhnay that is to say yani course-kii 4 years dawladaha qaarna ay 10 sano ku gaadho Suudaan oo kala kamid ah ya 10 sano ku gaadho marba way ka dhacayaan that if you drop a course you still have to take it right you drop a course you take it again and you take it again waliga ay Allah baajiro ku jiraysa Sooma anagu midna ma drop garay not a single course not a single condition mid walba waqtigeedii iyo waqtiga horeyaan ku dhamaynay 3 sano bar markaan joogno waxaan gaarnay decision point waan graduate garoonay markaas deyntii la naga dhaafay markaas barkii kale la yiri master's degree baad u baahan tahay another 2 years I'm just giving you an example of how it was marka master's degree aad qaadato everything waa laga deenayaa waxa lagu furayaa lacago deeq baa lagu furayaa deeqdu decision point ka maalinta la gaaray waxa la furay in access aan u yeelano grant resources maalinta laga soo bilaabo waa imika waxa weeye 26 bilood meelaha weeyaan $2 bilyan ba Soomaalida soo galay $2 bilyan mashaariic iyo kab miisaaniyad $2 bilyan oo biyele oo education le urban development le resilience of communities le cunto le you name it baalkii ayixii ay arrimihiisa wax laga qabanayo marka waxaan gaadhnay marka adduunyadu inay tiraahdo yes Somalis can do it yes Somalis can do it intaan doonayna waxa ahayd nodayn cafinta laakiin in wax dad aan la heshiinay aan qaban karno waliba we can overperform ay doonayeen inay ogaadaan waana ogaadeen wax walbana wala noo furay marka wixii loo baahnaa inaan qabto ama aan qabanno ayuun baan qabanay waxaan idinku soo gabagabeenayaa haddii su'aal jiraan waan ka jawaabi doonaa bad baa 5 sanadood bada baan ku soo jirnay
waxaan nidaaminay sida wax loo bixiyo aan nidaaminay waxaan nidaaminay dadka shaqaalaha ah inay actually shaqaale yihiin iyagoo shaqaale ahayn baa lacag si jiro anagu u nime meesha oo aanad in hebel iyo aanad kala garanay waxa anagu aan soo gaadhnay iyadoo nin askari yahay booliiskana yahay militarigana yahay NSS-na yahay haddana wasaaradda maaliyadda ka shaqeeyo afarta wax meel ka qaato ayaa oo dadku aan register-ayn biometric baan ku soo rognay qof walba suulka laga qaado suulkiisa iris-kiisa iyo numberkiisa isku mid yihiin oo hadaad mar suulka saarta wax laba qof ma noqon kartiin just one person bad noqon marka systemka noocaas oo kala ayaan soo saaray waxaan soo saaray system transparent oo IMF tuna dhinaca kale naga ogtahay on isla wada ognahay very transparent do not hide anything so lama oo tuu baaki waxba qarin mayno anagu everything should be known waxayna soo galan hal ogaado wixii baxaya hal ogaado wuxuu ku baxaya hal ogaado wuxuu ku baxayana budgetka ayaa maamula budgetka kabinetku ansixiyay ee baarlamaanku ansixiyay inaan dhinacna looga baydhin أنا واحد يشجع نك أقول أصحاب يربان وزارة دولة. I had absolutely no friends and I didn't care. I did not care because جد بنقص عنا جد كاس بان مرينا ولي party كمان قيد قلنا هبين أما تي party أنا قدام محنوضة أقل كي حفيز كان that's it. marka runtii waxaan soo gaadhnay IMF to inay tiraahdo Soomaaliya waxaan doonaynaa wadanada imika dariiqa ku soo dhacaya inaad ka caawisaan arrinta deegaanka oo Zoom lana soo wada geliyo dabeetana la shaqeyno technical assistance u diro ya leena experts ma ku noqon ma garatay waxa kale oo aan ku guuleysanay dadka wax yaqaan ee meesha ka shaqeeya inaan la bedelin wala soo gaarsada meesha wanaagsan qaar wala bedelay qof kale la keenay wan diidaanu cid doona baan qofka wanaagsan shaqeynaya wasaaradda la taaban maayo ya marka waan idin mahad celinayaa haddii su'aal jiraan waan ka jawaabay magaca Soomaali waa wanaagsan yahay markay noqoto private businesses oo dadka xalayaan arkayay they will surprise everybody dadkan xalay arkayaan oo dhalinyarta xalayaan meesha ku arkay innovative ideas ka hayaan iyo waxay ka waramayaan iyo halka wax marinayaan every aspect of life dhalinyar oo sodon gaarin ba ka hadlaysay wax ajaayib laakiin inaan ismaamulo baynu kari weeyno marala markaan isku nimaadno raada resource common aan maamulo oo baan monsters soo baxayna monsters dhibaato way keenayna marka in terms of the world ya adduunyada saan ula socono way tahay inaan wax qabanno meel kastaba joogo now muqdisho waan ka imi halkan baan idin joogaa security iyaduna maanta ma wanaagsana ya laakiin anu waxaan ku talagalayaa waxa weey meeshan doona baan joogay inta amriga ka hadhay wuxuun baan tari ya wuxuun baan tari ma garan idinkana waxaan idinka filayaa idinka codsanayaa inaad sidaad u socotaan iskuna xidhnaataan runtii wallahi farta ku xigtaa lagu kabaaye ya inaad wada socotaan wax wada qabsataan dalkiina waa idin baahan yahay tiina waad kafaala qaadateen oo ready dalkiina waa idin baahan yahay meeshaad ka timaadeen dib wax ugu celiya ana am sure you do laakiin waxa la yidhi waa inta nin iyo dumarba waa loo jeedaa waan munayaa inta reerkiisa soo dhaafta hooyada baad wax u dirtaa walaalaha baad wax u dirtaa laakiin common good kii baa wali idin haray common good isku la wada sameeyo iyo ceel la wada qodo iyo ya meelo kale oo common good as they say baa idin haray waana la idin ka baahan yahay dalkii ogaada aad baan si qalbi furan aan u soo dhaweynaya sidii soo dhaweyseen hadna waan idin ka celinayaa haday su'aalo jiraan waan isku day doonaa ka jawaab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آديات بوماسية دكتور بيلة reer Minnesota iyo guud ahaan dadka Mareykanka jooga Beyle cidii suugaantiisa dhageysata oo la hadlay waliba caawaynta halkan fadhida dhalinyaro baa u badan heestiisii dhalinyarada waxa kamid ah dhalinyaraha ka codtoosa dhidibkii arkaha goosta dhiidhiye sidii goosha
sidii galowga dhiilooda dhacdiidku waa daale muruqiina dheefaysta California iyo Dayton Minnesota soo dhaafa marka inaan Minnesota soo dhaafno wixii aqli iyo karti iyo dadnimaan hayno aan geeyno wadankii waa muhiim waxaan u maleynayaa hadal inta ka dambeeyay ma jiro laga mana daba hadli doona Dr. Bayla inoo soo khatimay